wax badan baa Puntland u suurtagalay wixii u suurtagalana waa la socotaan maamul baa la sameeyay lagu kalsoon yahay maamulka waxa lagu heshiiyay 3 sano gudahood inuu u gudbo inay ummadda Puntland soo doortaan cidii matala lahayd Puntland waxay qabsatay toobiye la yaqaano oo dawladnimo ismaamul kala dambayn iyo istixgalin ah taasa marka keentay in qof alla qofkii la doortaba la daayo ilaa xilka waqtiga loo igmaday uu ka dhamaanayo inta haday u suurta gashay maxaa Puntland ka maqan waxa la isla waafaqay marka loo fiirsho dadkeeda deegaankeeda shaqadeeda dawlad jacaylkeeda midnimadeeda iyo siday waliba ugu hurtay inay dawlad Soomaaliya raadiso waxa suurta galiyay dhiigii beecaankii maalkii iyo ciidankii u gurmaday Soomaali inay mideeyaan madaxweyne ugu horeeyay Puntland ayaa calanka Soomaaliya ka tagay filla Soomaaliya warantay Soomaha 2,000 wiil oo ka timid Xaaba iyo Baargaal ilaa iyo Galdagob ilaa iyo ari cadeeye ayaa ku dugan madaxtooyada Soomaaliya war ma dawladda inta aan u hornay badayici karna maanta marka qaarkood waxa la isku khaldaa khilaafaadka ka dhaxeeya ashqaasta iyo khilaafaadka maamulada ka dhaxeeya wax badan oo dadku ay tabahayaan ma aha khilaaf ka dhaxeeya Puntland iyo dawladda federaalka arintaas marka waxay abuurtaa jahwareer saa'ida waxaan aaminsanahay Puntland waxa ka maqan hoggaan aragti fog leh ma dhici karta 20 sano ka bacdi wiilka askariga oo naftiisu hore inuusan mushaharkiisa heli karinin ma dhici karta gabadhi dhakhtarada ahayd oo tulooyinka joogtay inaysan mushaharkeeda heli karinin ma dhici karta in jidadkii wada burbureen oo jidkii gaaladu ku deeqday oo gaalkacyo iyo la isugu xiri lahaa ee Garowe oo gaariga Boosaaso ka soo baxay habeenkii uu hooyan lahaa oo midka xoolaha wada subax uu soo hooyan lahaa in cirka lagu kala gato war ma dhici karta walaalayaal Puntland waxay u baahan tahay in loo hiiliyo idinka kaliya idinkama baahna annaga musharaxiinta hil bay nooga baahan tahay maamulka maanta xilka haya hil bay uga baahan tahay shacbiga Puntland hil bay uga baahan tahay Police Puntland sheegata maaha waa Puntland ka tirsan ka qayb galay maalintii la asaasay Puntland 1998 go'aankooda uu noqday inay Puntland ku biiraan sida loo xalinayaa waxaan aaminsanahay Somaliland xaq uma laha gobolka Sool deegaankooda waa la yaqaan labada gaatamo weeye Puntland awood ay ku xaliso way leedahay awood asal maaha waxa asalku yahay in aqligu uu shaqeeyo waxa rabnaa Soomaali oo mid ah oo nidaam federaaliya ku dhisan iyo Puntland oo dhisan oo dhameystiran baan doonaynaa Puntland adduunka iyo Soomaaliyaba waa la ogyahay waxa ku jira halka waa loo soo socdaa mar dhow waxaad arki doontaan iyada oo meel kasta la joogo wadankaad u jeedaan gobolka ugu weyn waa gobolka bari hal jida ma laha isku xira timirtiisii iyo xijigiisii iyo baddiisii iyo kalluunkiisii waxa jira bari gabadhu markay dhasho caluula iyo Baargaal iyo Xaafuun ayaa gabadha godka loo qodaa markay dhalayso timirta ka soo baxda Soomaaliya oo dhan baa loo dhoofin karaa meel la soo mariyaa la laayahay waxa maanta loogu baahi badan yahay jidadka weeye dalkaani waxa priority u ah in horumar loo helo in deegaan loo helo in jidad loo helo in warshado loo helo gobolkii Sanaag oo gobolada ugu muhiimsan ka mid aha hadda wax loo wada waa la socotaa waxaad ogaataan jidkaas oo laamiya wallahi waa imanaya insha Allah waa imanaya baran oo magaalo weyna oo ilaa Cerigaba socota oo dadkeedu ay leeyihiin xuquuqda Puntland leedahay waa imanaysa insha Allah xeebaheena waa la socotaa mataqaan dekedaheena waa la socotaan meeshii yar tahay iyadaba leena ku haystaaba Boosaaso waxay u baahan tahay inay tartami kartana waxay u baahan tahay inay hesho meel containerska la keeno anigu waxaan qabaa waan ka soo shaqeeyay Boosaaso 2 sanaan maamule ka ahaa 4 sano mar bay buuxsamaysaa in qashinka in ciidda laga guray u baahan tahay waxay u baahan tahay dib in loogu noqdo heshiiskeedii dib loo qiimeeyo oo wax ummadda Puntland ka gadmi kara halka ay ka soo baxaan waa rabnaa in la hormariyo anagu marad waa rabnaa dekada in la wasiyo waa rabnaa heshiis in la helo waa rabnaa development waa rabnaa walaalahay khaliijka waa u baahannahay laakiin wallahi baanaan yeelan heshiis aanan ogeyn wuxuu ka kooban yahay markii dawladda ay isqabsadeen ganacsatadu dhaqankeena waxay ku taliyeen heshiiska la galay banaanka in la keeno ummadana xaq waxay u leedahay waxa go'aankooda lagu gaaray inay ogaadaan anigu haddaan qariyo
ummadda waxa loogu talagalay sooma inaanu dan shakhsiga ka leeyahay sooma garsoorka iyo cadaaladda meelan cadaalad jirinin nabad ma jirto amni baa asaas u ah haddaynan amniga hagaajinin waxba hagaagi maayaan anigu askari maahi laakiin waxaan idiin sheegay inaan la bajin karin Puntland dagaal baa ku socda dhaqaale burbur baa ku socda intaas yaynaan isa sii ragaadin oo isku sii fogeyn waxaan kaloo idiin sheegayaa doorashada ninkii isku day inuu boobo taariikhda waxaan ka baranay wallahi nin booba inuusan weliga helin ninka ugu horeeya ku khasaaraya weeye iga qorayaduna waa taariikh maanta waxaan rabnaa ninkii guulaysta inaan ugu hambaliyayno kulana shaqayno anigu waxaan ahay daljoog anigu waxaan ahay goob jooge Puntland wax badan baan ka ogahay wax badan baan ka soo shaqeeyay waxaan aaminsanahay Puntland wax badan baa u qabsoomay ilaa maalintii la asaasay anigu xisaabiyaan ahay auditor baan ahay baabuurka jidka maraya saacad aan taaganahay baan ka garan karaa dekada inta ka soo baxaysa bishaas iga rumaysta waa heli karaa waxaad is oran kartaan war cali 5 sano ka hor buu tartamay isbedelkii ka dhacay Puntland isaga keenay maantay muxuu u soo noqday walaalayaal Puntland waxay u baahan tahay in loo hiiliyo idinka kaliya idinkama baahna annaga musharaxiinta hiil bay nooga baahan tahay maamulka maanta xilka haya hiil bay uga baahan tahay meel musuqmaasuq ka jiro oo waliba musuqmaasuq meesha ugu sarreysa uu ka bilaabanayo oo qof walba dhaqaale iyo lacag ka hadlayo meeshaas nolol ma taalo shalayta waa tartamay markii tartankii dhammaaday dad badan baan ahayn oo tartamaya maalintii ay dhamaatay doorashadu bay diyaarad raaceen maanta soo noqonayaan ogaada maanta imaanayaan ogaada war ma ka yeelaynaa waxa ugu horeeya maanta aan u soo noqday waxa weeye wixii shalay 2014 aan khalday maanta inaan saxo oo intaas aniga kafaara guday u noqotay idinka hortiniyo ilaahay hortiisa subxaanahu wa ta'ala waxaan ogahay Puntland waxa ka khaldan waxaan ogahayse dad waxa khaldan wax ka qaban kara waxa ay qorshaysan aniga priority ah waana wax alla waxa khaldan oo ku saxmi karaan haddii miisaaniyad sax la helo haddii dad ammaanada shaqada loo dhiibo haddii xuquuqdooda ay helaan qof walba meeshiisa uu ka soo baxaya kaalintiisa dadkana waa dad islaam ah waa dad ilaahay yaqaana waa dad xalaal iyo xaraan kala garanaya haddii xaqiisa uu helo waxaa laga yaabaa xaqa ummadda uu hayana inuu ilaaliyo madaxweynaha hadda xilka noo haya oo waqtigiisa dhammaaday waxyaalaha ugu muhiimsan waanu ku kala tagnay waxaa ka mid ah markuu lacagta daabacayay waxaan ku madaxweynow lacag ma daabici kartid oo ummadda Puntland maanta ma xamili kara lacag faalsa in dhexdeeda lagu daabaco oo dhaqaalahan jilicsan ma qaadan karaan lacag been abuura ma qaadan karaan ma daabici kartid oo taariikh hore jirta masaajidda laga habaaray hadda koor cidii daabacday lacagta kuma noqon karin mar labaad ummadda islaamka ducadoodii habaarkooda ma qaabili kartid ma samayn kartid oo aqoonyahan baa tahay dhaqaalaha waa taqaanaa sicir barar baa imaanaya dollarku waa dhacaya ha horseedin waxay noqotay aniga isaga anigu inaan baxo maxay la isaga qaraarka iska leh hadda anigu talada sare joogi lahaa waa joojin lahaa laakiin ninka talada jooga qaadanaya hadda tara professor baan wax walba waa aqaana maxaan kugu aaminaynaa Soomaa waxaan ku noqonaynaa waxaad soo qabatay nin maanta soo degay oo shandad watahay Puntland ma xukumi karo wallahi basan xukumi karin Puntland ma yaqaan dhaqankeeda ma yaqaan waxgaradkeeda ma yaqaan ismadeeda ma yaqaan xurmadeeda ma yaqaan waxay kala mudan yihiin ma yaqaano wax walba intuu lugta ku walaaqo ayuu rabaa 5 sano ka bacdiga durfa inuu nagu soo turo war ma ka yeelaynaa sidaa daraadeed waxa la rabaa qof dadkan isku qaadi kara la rabaa wadaadkiisa waranlihiisa dhalinyaradiisa gabdhihiisa laba qaab marka xilka lagu qaadaa qaab waxa lagu qaadaa inay bulshada ka timaado quraanka ilaahay baa cadeynaya nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam markuu gabdhihii u waraabiyay arigii u waraabiyay aabahood bay ku noqdeen waxay dhan aabow ya abatista ajirhu inna khayra man istaajarta alqawiy alamin aabow ninka noo shaqaale oo hawsha u dhiib waa nin aamino awood leh bay yiraahdeen wixii loo dhibana waa lagu aamini karaa nafta dadka iyo maalkooda waa lagu aamini karaa sanad iyo bar baan wasiir ahaa $330,000 baa lagu lahaa lacagtaas waxaan u qaatay shaqadii aan ka hayay dawladda gurigaygii saan u noolaan lahaa mushaarkaygu wuxuu ahaa $1,600 wax alla waxaad aragteen oo booli qarana
waxay ka timid ummadda xaqeedii haddii loo qaybin lahaa si xalaala ummadda o dhan waa ku filan lahayd soo maa markii la garan waayo bulshadu wareerto waxay noqonaysaa qofkii wax qaban kara inuu bannaanka soo istaago iyadana kitaabka ilaahay bay ku taallaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam ninkii gaalka ahaa markuu warseen la yeelaya 7 sano abaara iyo 7 sano barwaaqa ah see wax loo maamulaya ijcalnii calaa khazaa'in alardi innii xafiidun caliim ii dhiib buu yidhi hoggaanka maamulka anaa aamin oo aqoon-yahana waxaa jira nin aqoon leh oo ammaanad darradiisu xumaynayso labadaasaan isla leeyahay dalka taladiisa ha la ii dhiibo taayaydi ka hoos bixin cid kale oo lagu eedeynayaa ma jirto haddii puntland uu u yimaado wasiir xun hadduu puntland yimaado madaxweyne xun waxaan rabnaa dalkan waa dal khayr badan waa dal wanaagsan waa laga soo shaqeeyey waa maalintii xuseen gacay talaal ilaahay caafimaad ha siiye cafallahu camaa salaf bay maraysaa waxaa la rabaa wixii hore annagu waa hilmaamaynaa laakiin wax soo socdo nala ku baabiinayo war ma yeeli karno walaalayaal miyaan yeeli karnaa haddii ilaahay igu guuleeyo waxaa idinka ballan qaadayaa madaxweynaha soo socda inaad idinku doorataan haddii ilaahay yidhaahdo xildhibaanka soo socda inaad doorataan dadku waa inay ka fekeraan dowladnimada waa inay ka fekeraan sharafta waa inay ka fekeraan dalkooda inay dhistaan waxaad ku keeni kartaa aynu ku samayn karnaa inay kaa arka adiga madaxda inaad wanaagsan tahay ninka hadlayoo le war cali xaaji meeshaa ma tegi karo anugu waxaan leey bow aa la tahay soo sidaa maaha waa la tahay beentiis weeye wallaahi beentiis weeye ummaddu ninkay rabtaa xukunka imaanaya ogaada anigu inaan guulaysa muhim ma aha faarax iyo yuusuf iyo jaamac iyo cali inay guulaystaan muhim ma aha waxaa muhima inay puntland guulaysato waxaa muhima inay puntland nabad tahay waxaa muhima puntland inay magac leedahay waxaan insha allah idinka ballan qaadayaa inaan hankiinna ku shaqeeyo inaan jeebkayga ka weynaado inaan lacag aan helo aanan raadinin inay puntland noqoto meel ardaygu shaqo heli karo tacliin wanaagsan heli karo askarigu xuquuqdiisa heli karo dhakhtarku xuquuqdiisa heli karo gabadha neeraska xuquuqdeeda heli kardho hooyada dhalaysa xuquuqdeeda heli karto puntland way awooddaa dhaqaalaheedu way leedahay in loo beeqaamiyo loo ilaaliyo rabtaa ummadda soomaaliyeed oo walaalahaya waxaan rabnaa inaan nabad kula noolaanno annagu cidna dullaan kuma nihin weligaya cidna dullaan kumaanaan ahayn war ma cid baan dullaan ku ahayn weligaya cidna dullaan kumaan ahayn annagaa nala soo weerarayey annagaa nala laynayey annagaa guryahayagii la qaatay annagaa dhulkayagii la qaatay weli soomaalinimaan rabnaa waa u taagannahay soomaaliya ha noolaato puntland ha noolaato